الحمد لله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد شركة جرائد أي قوانا أيان حلبانada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda Digili Mirfle waa sababtiisii ujeedadiisa waxaa ka hadlay xildhibaanadii asxaabta aan ahayn ee iga horeeyay waxaan rabaa inaan sii ifiyo arrinta idaasi adkeeyo oo muxuu ahaa wixii iga aadnay aan ka iraahdo mooshinka gudoomiyaha baarlamaanka laga keenay ama soo jeedinta gudoomiyaha baarlamaanka laga keenay waxaa keenay sida la idin sheegay xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed oo isku jira xaq baynu u leeyihiin xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka qabiyada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labada ayaa loo raacay marka xildhibaanada xaq bay u leeyihiin cidda shir gudoominaysa inay muxuu ahaa ay go'aan ka gaaraan inuu u sii joogayo iyo in muxuu ahaa iska bedelayaan oo qof kale ay dhaxdooda ka dooranayaan khayr bay u leeyihiin waa normada caadiga ah ee baarlamaanka uu ku dhaqmo waaye gudoomiyaha baarlamaanka annaga sida la sheegay walaalkeen wuxuu ka soo jeedaa beeshan uu ka soo jeedaa Soomaali baa dooratay haddana Soomaali baa ka keentay laakiin cabashooyinka ugu badan ee xildhibaanadu ay ka qabeen dadka ay ku soo hormarayso loo keenayo oo muxuu ahaa loo soo bandhigay ayaan ku jirnay maadaama ay nixijinayaan kastoo aan la kala xigin waxay ku salaysan tahay eedeymahaasi dhismihii gudiyada baarlamaanka sidii loo dhisay bay xildhibaanada ka cawdeen waxay ka cawdeen maamulka miisaaniyadda baarlamaanka waxay ka cawdeen maamulka ajandada kala gedisan ee fadhiyada baarlamaanka la hor keeno oo ay ku tilmaameen ama loo wada arkay baarlamaankii sagaalaad baan soo joognay gudoomiyaha isaga gudoomiye ahaa ajandooyinka sida loo maamulayo waa la arkay ajanda sahlan oo si sahla lagu dhameyn karo ayaa ummadda Soomaaliyeed runtii aad ay u dhibsanayeen sida loo maareynayo yani ajandadii waxaa qasab noqonaysa in khilaaf iyo buuq wax badan ku kaca oo ummadda Soomaaliyeed aan ka go'in ku kaca ayay ajandadu noqonaysa taasna waxa uu sabab ah oo xildhibaanada mooshinka keenay ay ku sababeynayaan oo dadka dhan ay og yihiin gudoomiyihii oo muxuu ahaa ajandada dhinaca haa iyo dhinaca maya ama dadka taageersan ama dadka diidan aaraad lagu kala duwan yahay waa dimuqraadiyad dadka kala raacsan qolo walba gudoomiyihii waxay u arkayaan in uu muxuu ayaga ka mid yahay markay la kulmaan taa ayaa waxay keenaysay inay dadka ku dhiiradaan in qolo walba mowqifkeeda ku adkaysato aan la isku tanaasulin ajandihii wuxuu noqonayaa marka mid qaali ah oo la isku dilo oo dalka kala qaybiyo waxyaabahaas iyo kuwa badan oo gudoonka shaqadiisa aan ka mid ahayn oo gudoomiyaha baarlamaanka looga cawday lagaga sheegtay ayaana soo gaaray xildhibaanada gudoomiyaha baarlamaanka garabkiisa oo isku meel laga soo doortay oo isku deegaanka ka yimid haddaan nahay ee qaranka Soomaaliyeed matalaya waa qaadi weynay waa naga dhageysan waayay muxuu ahaa wixii asaga u gaarka ayuu iska watay ajandaha baarlamaanka iyo nidaamka baarlamaanka iyo maamulka baarlamaanka ayaa laga raray hoolka baarlamaanka gudoomiyaha waraaqu soo saaraa iyadoo aan baarlamaanka go'aan gaarin gudoomiyaha shirar buu qabtaa wuuna ka hadlaa go'aan buu sheegaa meel ay wax ku dhamaanayaan buu sheegaa iyadoo aan baarlamaanka go'aansanin taasna baarlamaanka hoggaankiisa looguma talagelin gudoomiyaha waa la soo doortay isku meel baan ka soo wada baxnay xildhibaan kasta 275 ka mid ah sida loo soo doortay baa loo soo doortay xildhibaan walba wuxuu matalaa deegaan iyo tuulo iyo muxuu ahaa reer asagana sidoo kale reer saas uu matalaa marka gudoomiyaha shaqadiisa waxa waay aad bay u kooban tahay dastuurkay ku qoran tahay xeer hoosaadkay ku qoran tahay haddii iyada lagu soo koobo dalka khilaaf kama dhaceen xildhibaanada isma qabsadeen mooshinna lama keeneen horta haddii xadkii loogu talagalay laga baxo waxay keenaysaa muxuu ahaa istoosin in la keeno marka qofkana in la toosiyo hadduu diido dhibaatadeeda leedahay hadduu is casilayo sida la sheegay walaalkeen waa u soo jeedinaynaa
hadduusan iscasilayninna in nidaamka dimuqraadiga ee sharciga uu hoggaansamo uusan hafanin ayaa loo baahan yahay annaga waxaan ku talinaynaa in muxuu ahaa nidaamka baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed ay soo doorteen inaan la khaldin rabitaanka dawladnimada iyo shacabka rabitaankiisa nidaamka dalka uu ku soconayo dalka dhibaatada haysata in muxuu ahaa waxaan aan qorannay aan ixtiraamno anagana aan ixtiraamno oo muxuu ahaa nidaamka sharciga aan u hoggaansano oo dadka Soomaaliyeed u adeegna loo baahan yahay muxuu ahaa in dadkii intii loo dhaxeeyo kulligoodu hal shay loo wada sheego ay fooda isqabsadaan ma fiicna shaqada guddoonka ayaan rabay inaan aad u cadeeyo oo ah guddoomiyaha markii quorum uu dhan yahay ayuu muxuu ahaa shirkii quorumka baarlamaanka tiradii la rabay guntanka uu ku qabsoomayay ay dhan tahay inuu sheego quorumka waa dhan yahay shirka waa noo furan yahay ajandadii inuu u daadihiyo markii cod la qaado tirada badatay inuu sheego uu yiraahdo inta badan tiradaas inta la eg waxay yiraahdeen ha tiradaasna maya sidaas darteed waxaas la ogolaaday go'aanka baarlamaanka inuu ku dhawaaqo shirka markuu dhamaado inuu yiraahdo shirka waa noo xiran yahay hoolka markii laga dareero dadkiisa inuu limad ahaado uusan muxuu go'aamo soo saarin oo baarlamaanka gaarin uusan waraaqo qorin baarlamaanka aysan ka soo bixin go'aan baarlamaan aysan ahayn aqlabiyadda baarlamaanka wixii ay sheegtay kaliya afhayeenka baarlamaanka la yiraahdo ayuu afkooda ku hadlaa waxaan ahayn buu walaalkeen galay dadkii waa ka cawdeen mooshin bay ka keeneen annagu mooshinkaas hormuud baan ka nahay deegaankii walaalkeen Jawaari uu ka yimid haddaan ka soconno shacabkayaga iyo muxuu ahaa xildhibaanadayda iyo dhammaan muxuu ahaa intii ra'yigaas taageersan oo Soomaaliyeed hormuud baan u nahay waxaan rabnaa walaalkeen inaan la talino marka koowaad marka labaadna shacabka Soomaaliyeed inaan u cadeyno inaan annagu muxuu ahaa aan nahay dadka ay ka timid inuu muxuu ahaa aan taladeena uu diiday aan qaban weynay oo ay tahay inaan codkooda aan codkeena ku biirino oo aan muxuu ahaa guddoomiyaha ka fariisino baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa walaalayaal xildhibaananahay shaqadaas noo taalo adag wada jir baan rabnaa inaan u shaqeyno waxaan rabnaa inaan horumar dalka gaarsiino in baarlamaankeenii oo hooyada hay'adaha dawladda qaranka ah in muxuu ahaa baarlamaan degan oo nidaam ku socda oo muxuu ahaa guddoonka ay doorteen mid u dhaxeeya oo dhaxdhaxaada uu yahay inuu noqdo ayaan u baahannahay sidaas daraadeed anaga garab baan idin nahay waxaan idin ka codsanaynaa haddii oo muxuu guddoomiye baarlamaanka anaga nagu soo riixseen marka hore waa ogeydeen deegaankaasi laga diidanaa hase yeeshee haddaad doorateen anagu raalli baan ka nahay aqlabiyadda baarlamaanka waxay sameeyaan waxaan idin ka codsanaynaa 60 kala soo hartay midka rabtiin ka doorta xula dhaxgala ama qofka rabtiin doorta laakiin walaalayaal annagana hana qasbina idinkana muxuu ahaa dhibtoonina ajandaha baarlamaankana waxaan rabnaa inuu noqdo mid degan sidaas daraadeed ayaa arrintan ugu kalifaysa qarannimo doon iyo muxuu ahaa nabad raadin iyo musaalax raadin bay naga tahay aad iyo aad baa u mahadsantii